10 macluumaad oo kooban oo ku saabsan dalka Japan. Bedka iyo juqraafi ahaan Japan halka ay dhacdo. Japan waa dal ka kooban jasiirado oo dhaca xeebaha bari ee Aasiya, waxaana uu bedka dalkan uu yahay 377,975 kiiloomitir laba jibaaran. Japan juqraafi ahaan waxay dhacdaa waqooyi galbeed ee Badweynta Basifiga, waxaana dhanka galbeed ka xiga badda Japan, halka ay kaga fidsan tahay badda Okhotsk dhanka waqooyi. Sidoo kalena bariga badda Shiinaha iyo Taiwan ayaa ka jira Japan dhanka koonfureed. Jasiiradaha ku yaala Japan: Honshu, Hokkaido, Kyushu iyo Shikoku waa 4 jasiiradood ee ugu weyn ee ku yaala dalka Japan, halka dhammaan marka la isku daro wadarta jasiiradaha ku yaala Japan ay gaarayaan 6,852 jasiiradood. Caasimadda: Tokyo waa caasimadda ugu weyn ee ugu dadka badan dalka Japan, waxaana ay caasimadda dalkan ay tahay tan iyo sanadii 1868. Tirada dadka u dhashay Japan waxay gaaraan 125 milyan oo qof, waana dalka 11aad ee ugu dadka badan adduunka. Luuqadda rasmiga ay ku hadlaan dadka reer Japan waa luuqadda Jabaaniiska, ayadoona u kala baxda dhowr lahjadood. Calanka dalka Japan wuxuu ka kooban yahay 2 midab oo kala ah: midab cad oo leydi ah oo dhexda kaga taal wareeg cas, waxaana loo yaqaanaa calanka Noshiki, balse si guud Japan waxaa loogu yaqaanaa Hinamuro. Kalluunkii ugu qaalisanaa adduunka ee Bluefin tuna waxaa lagu iibiyey suuqa kalluunka ee Tokyo, asigoona lagu iibiyey qiimo dhan $3.1 milyan. Dhaqaalaha: Japan waa dalka saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka marka laga soo tago Mareykanka iyo Shiinaha. Waxa ugu badan oo uu dhoofiyo Japan waa matoorada, qalabyada elektaroonikada, baabuurta, robotyada iyo ciyaaraha muuqaalada ama video gameska. Mana lahan dalkan ilo tamar oo dabiici ah, waana dalka ugu badan ee soo dhoofsada saliidda, dhuxusha iyo gaaska dabiiciga. Cunooyinka ay caanka ku yihiin dadka reer Japan waxaa ka mid ah cunooyinka sushi, ramen, soba, tempura, taiyaki iyo yakitori. Haddii aad maqasho magaca dalka Japan, waxaa suuragal ah inay maskaxdaada ku soo dhacdo buurta Fuji, ciyaarta musaaracada dadka buuran ee sumo, kaartoonada anemiga, shirkadaha baabuurta, tareenada aadka u xawaaraha sareeya, iyo ciyaaraha muuqaalada kombiyuutarada ama mobilada lagu dheelo, iyo waxyaalo kale oo badan. Halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa macluumaadkeenii koobnaa ee ku saabsanaa dalka Japan.